saraakiishan ka tirsan ciidamada nabad sugidda Jubbaland ee gobolka Gadow ayaa warbaahinta u soo bandhigay Aadan Ibrahim Axmed oo ka mid ah kooxda nabaddiidka Al-Shabaab isla markaana maanta isku soo dhibay ciidamada nabad sugidda Jubbaland ee degmada Balad Xaawo ee gobolka Gadow iyadoona markii dambe loo soo gudbiyay degmada Doolow ee gobolka Gadow. Aadan Ibrahim Axmed waxa warbaahinta u sheegay inuu isku soo dhibay ciidamada nabad sugidda isla markaana uu ka tanaasulay fikirkii kooxda nabaddiidka ee ku aadanaa dhibaataynta ummadda Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan. magacaygu Aadan Ibrahim waxaan walaalaha maanta ku soo dhimaaday oo walaalo wanaagsan aad ay soo dhaweeyeen xalay ay shalay 9 soo baxay saacadii dhexdeeda gaaji iyo dhib iyo rafaadka ay haystay dhacayso in qalab ka sameynay ay doorka gaaji ku dhameynayaan ka soo tagay shalay 9 saac ilaa xal dhanbay cirsanayeen ilaahay baa iga soo fikiyay dawladda oo maaday gacan furan ba maanta lagu soo dhaweeyay waxaan aad kuwa aan ka soo tagay iyo kuwa iga dambeeyo waxaan u sheegay oo ku dardaarmaya inaad imaadin oo aan ugu tusaal qaatin oo soo baxdin nimankaasna diidka ilaa muddo niyada inaan ka soo goosto u jirtay laakiin waxay u hayeen jawaasiis iyo malayaan muddo badan ay xakameynayeen oo hayeen inaan soo baxana muddo badan ay go'aansaneed ilaahay subhanahu qaadirkeena iga soo fikiyay badan ka qabto wax badan jooyin badan ka qabto jooyin badan dagaal wax ka qabtay howlo badan wax ka qabtay xoolan ay islaamka iyo gawaarida islaamka wadooyinku istaagaan wax badan ugu qabtay hadda ninka inta badan ay ku tishinayaan ilaa xal wax ay raacdeysanayaan wax kalmaaha wax gal wax saas ay raacdeysanayeen haddana ilaahay waa ku maasan si ayadii si u dhowmina mihi maanta ayr wadaan qaas soo qaadan ayr aygoona wax inqilaab iyo wax dhifaato mid wax taabsina malan hadda wax meesha jawaab iska yar oo tiro gaabana inta aydan ayr wax yeelan malan gacan furna lagu soo dheeyay wadada soo qaadan taliyaha ciidamada nabad sugidda Jubbaland ee gobolka Gadow Cali Xasan Deer ayaa u waramay warbaahinta isagoona ka warbixiyay sida uu isku soo dhiibay sargaalkan ka tirsanaa kooxda nabaddiidka Al-Shabaab. ilaahay baa mahadsan allihii fursaddan na makaniyay saad arkaysaan meeshan waxaa isku soo dhiibay oo xalay gacantanada saaka alasaydi soo galay nin sargaal ah oo ka soo galay kooxdii khawaarijta shabaab ka soo galay ayaa is soo dhiibay waad u jeedaan sida ka muuqato ninkan waa nin sargaal oo shabaab ka tirsanaa muddo ka tirsanaa 2 sano dhowr sano intaasoo sano ka tirsanaa area iska soo dhiibay area tuulo barwaaqa ayuu iska soo dhiibay way soo daba socdaan sida aad arkaysaan duurkan waxba kama jiraan waa ku rafaadeen dhibaata kala kulma annaguna gacmo furan baan ku soo dhaweynay waxaan u sheegaynaa kuwa uu ka soo kacay oo wadada qaldan ku socdo iyo kuwa kale oo ayaga asagaas la mid ka goobaha kala jooga isu soo dhiiba dawladda gacanta ciidamada amniga isu soo dhiiba wax la idin yeelahay ma laha waxba la idin ma dhimahayo cafiska dawladda ayaa la idin tixgelinayaa dawladda Soomaaliyeed dhalinyarada la qalday oo duurkan ku dhimanayso ku dhamaanayso in cafiskaas ay ka faa'iideystaan aad baan u soo dhaweynaynaa. Umar Idris Ahmed warbaahinta qaranka degmada Doolow ee gobolka Gadow.